inta badan uma malayno sameynta waxyaabaha yaryar inay nolosheena isbeddel weyn ku samayn karaan, waayo waxaan jecelnahay natiijo degdeg ah. Tusaale, haddii aad caawa xabad biitsaha ku cashayso, macquul maahan inaad beri soo kacdo adigoo cayilan ama miisaankaaga kordhay. Si la mid ah, haddii aad galabta jiimka aado, micnaheeda ma ahan inaad beri soo toosayso adigoo murqo waaweyn. laakiin muddo bil ah haddii aad habeen walba xabad biitsaha ku cashayso ama aad galab kasta jiimka aado, hubaal waxaad arki doontaa isbeddel weyn oo ku dhacay jirkaaga. haddii aad doonayso inaad isbeddel ku samayso noloshaada, waxaad u baahan tahay dulqaad aad ku joogtayso waxa aad samayso. haddaba sidee loo dhisi karaa caado wanaagsan oo aad joogtayn karto? buuggan Atomic Habits ayaa waxaan idinkaga soo xulnay dhowr dariiqo oo aad ku dhisi karto caado positive ah, taasoo aan filayo inay noloshaada wax weyn ka beddelayso. furaha isbeddel ku samaynta noloshaada maahan inaad hal mar wax weyn samayso ama aad bilowdo. waxaad ku bilaabi kartaa waxyaabo aad u kooban laakiin aad joogtaynayso, taasoo marka dambe kuu noqon doonta caado kugu hoggaamisa natiijooyin waaweyn. tusaale kooban, haddii aad doonayso inaad jirkaaga dhisto, ku bilow inaad maalin walba samayso 3 push up oo keliya, ama haddii aad caloosha iska yaraynayso, samee jimicsiga caloosha 3 jeer keliya. maalmaha aad dareemayso itaal dheeraad ah waad ka badin kartaa. waxaa laga yaabaa inaad ila yaaban tahay, haddaba ma isku dayi kartaa inaad samayso isla markaana joogtayso? iga rumayso, muddo kooban gudaheed ayaad ku arki doontaa natiijo kugu dhiirigelinaysa inaad wax badan samayso. si la mid ah, haddii aad danaynayso caadada wax akhriska, ku bilow keliya inaad maalintii akhriso 1 bog oo joogtay. aamin, waxaad jeclaan doontaa wax akhriska. sidee caado loo dhisaa? marka aad soo gasho qol mugdi ah, kama fikiraysid waxa aad samayn lahayd, waxaad si otomaatig ah u daaraysaa layrka ama nalka. waa caado aad marar badan ku celcelisay oo hadda si otomaatig ah u dhacaysa. haddaba sidee caado ku dhisantaa? caado kasta waxay martaa 3 process ama geedi socod oo kala ah: cue, response and reward. tilmaan, falcelin iyo abaalgud. tusaale ahaan, marka aad qol mugdi ah soo gasho, tilmaanta ugu horeysa aad helayso waa inaad samayso ficil kuu suuragelinaya inaad iftiin hesho. tallaabadaas waxaa loo yaqaanaa cue. kadib waxaad raadinaysaa halkii aad ka daari lahayd iftiinka, taasina waxaa loo yaqaanaa response, oo ah inaad ka falcelinayso tilmaantii aad heshay. ugu dambeyntii waxaad helaysaa ficilka caado kasta hadafka laga leeyahay oo ah reward, abaalgudka wixii aad samaysay, taasoo ah inaad ku raaxaysato iftiinka ay indhahaaga heleen. caado kasta aad samaynayso waxay martaa 3daas process: inaad tilmaan hesho, ka falceliso, kadibna aad ku raaxaysato natiijada. dabcan caado kasta ma ahan mid inoo wanaagsan. hadda waxaan fahamnay sida caadadu u shaqayso. haddaba sideen ku dhisi karnaa caado positive ah ama togan oo nolosheena horumarinaysa? si aad caado u dhisto, waxaad u baahan tahay tilmaan aadan seegin iyo qorsho ficil la socda. dhammaanteen waxaan leenahay tilmaamo nagu dhalinaya samaynta caadooyin gaar ah. dhawaaqa ogeysiiska telefoonkaaga waxay ka micno tahay inay fariin kuu soo dhacday, taasoo kuu tilmaamaysa inaad jeegarayso. marka aad ogaato inay tilmaamaha yihiin waxa kugu dhalinaya inaad ficil caado samayso, waxaad aqoontaasi ku dabaqi kartaa sidoo kale inaad beddesho caadooyinkaaga qaar. tusaale ahaan, haddii aad doonayso inaad yeelato caado wax akhris, samayso tilmaan kugu dhalinaysa inaad wax akhriso. tusaale ahaan, dhigo buugaag meelaha aad fadhiisato guriga iyo meel ay mar walba kaaga muuqan karaan. tani waxay kaa caawinaysaa mar alla markaad aragto buugga inaad hesho tilmaan ah inaad wax akhriso. kadib soo qaado buugga oo aqri intaad awooddo. haddii aad doonayso jimicsi, sidoo kale soo dhigo dharka iyo qalabka jimicsiga meel ay kaaga muuqan karaan. wax kasta aad doonayso inaad caado ka dhigatana waa la mid. caadada aad doonayso inaad dhisto, la xidhiidhi caado kale oo aad xiisayso. dabcan maskaxda bini'aadamka marna kuma raaxaysato waxyaabaha u baahan dadaalka badan. si aad u hirgeliso caado, waxaad u baahan tahay inaad maskaxdaada muddo ku tababarto. haddaba waxaan ognahay marka qofka bini'aadamka ah loo ballanqaado abaalgud, haddii uu ka soo baxo howl gaar ah oo loo cayimay, waxay u badan tahay in hawshaasi xooggiisa dhan isugu geeyo. maskaxduna waa la mid. haddii aad doonayso inaad abuurato caado aysan maskaxda ku raaxaysan, waxaad la xidhiidhin kartaa mid kale oo ay maskaxdu jeceshahay. tusaale ahaan,
haddii aad doonayso inaad wax akhriso adigoo og inaysan maskaxdaada ku raaxaysanayn hawshaas, waxaad samayn kartaa inaad caadada wax akhriska la xidhiidhiso ama ku xijiso caado kale oo ay nafta ama maskaxda aad u xiisayso, adigoo kaga dhigaya abaalgud haddii ay ka soo baxdo hawsha wax akhriska. Waxay arrintani maskaxda ku dhiirigelinaysaa inay kugu riixdo dhammaynta hawshaas si ay u hesho waxa ay xiisaynayso. Tusaale, kaba soo qaad maskaxdaadu waxay xiisaysaa daalacashada baraha bulshada iyo wixii la mid ah. Waxaad u sheegi kartaa inay isticmaalayso 5 ilaa 30 daqiiqo TikTok ama wixii la mid ah marka ay dhammayso hawsha hadda kugu taalla. Bal tijaabi. Haddii aad doonayso inaad caado dhisto, ka dhig mid fudud oo suuragal ah. Waqti badan ayaan ku bixinnaa caadooyin fudud sida daalacashada baraha bulshada, dhageysiga iyo wixii la mid ah. Haddii aad si wacan u adeegsato, waxaa laga yaabaa inaad wax badan ka faa'iido adigoo aan wax dadaal ah bixin. Inaad 100 push-up samayso waa wax adag, inaad maalin walba samaysana ka daran. Haddaba inaad ka dhigto mid fudud ayaa ah furaha dhisidda caado kasta. Haddaba waxaa jira xeelado dhowr ah oo loo isticmaalo. Haddii aan mid ka soo qaadanno, waxay tahay inaad adeegsato xeelada loo yaqaano xeerka 2 daqiiqo. Sharcigan 2 daqiiqo waa hab aad caado kasta uga dhigi karto mid la samayn karo. Xeerkan ayaa ah in hawl kasta loo bedeli karo caado 2 daqiiqo gudahood. Ma waxaad doonaysaa inaad wax badan akhriso? Ha ku dhegin inaad 1 buug akhriso toddobaad kasta. Beddelkeed, maalin walba isku day inaad 2 buug akhriso. Ma waxaad doonaysaa inaad jirkaaga dhisto? Ka dhabay inaad jimicsi yar samayso marka aad shaqada ama waxbarashada ka imaato. Kadib 2 daqiiqo keliya. Xeerkan 2 daqiiqo ah waa hab lagu dhiso caadooyin si fudud loogu guulaysan karo, kuwaasoo kuu horseedaya waxyaabo waaweyn. Marka aad 10 push-up samayso 2 daqiiqo gudahood maalin walba, waxay u badan tahay inaad marka dambe jimka toos u aado ama aad iska siyaadiso. Marka aad akhriso 2 buug 2 daqiiqo gudahood maalin walba, waxay sidoo kale u badan tahay inaad sii siyaadiso akhriskaaga. Xeerkan wuxuu tilmaamayaa in shay la bilaabo ay tahay tallaabada ugu horeysa uguna muhiimsan xagga hawlqabashada iyo dhisidda caado. Ku ciqaab naftaada haddii ay ka soo bixi weydo caadadaada maalinlaha ah. Sida aad og tahay, naftu ma ahan mid kugu dhiirigelinaysa waxa aad doonayso ilaa ay jiraan wax ku xiise gelinaya ama ku cabsi gelinaya. Samayso hab aad ku ciqaabayso naftaada haddii ay ka soo bixi weydo hawsheeda maalinlaha ah, adigoo caafimaad qaba ama duruuf daran aysan jirin. Tusaale ahaan, maalintii ay naftaada gudan weydo caadadaada maalinlaha ah, waxaad tusaale ahaan ka joojin kartaa isticmaalka baraha bulshada ama cunidda waxyaabaha ay xiisayso. Tani waxay ku siinaysaa sabab aad iskugu xilqaanto gudashada waajibka caado. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan faa'iiday. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like dheh oo la wadaag asxaabtaada. Sidoo kale ha iloobin inaad subscribe tiraahdo kanaalkan, gambaleelkan aad furato si aad ula socoto mowduuca xiga.